بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي وزير آد ياد أيها ومahadsan tahay guud ahaan shaqaalaha wasaaradda warfaafintana waxaan leenahay aad iyo aad waa bogaadinaya waa hambalyeynaya waa mahadsan yihiin dadaalka badan oo duruufaha adag iyo maxaan ku yiraahdaa awood xadidan adikoo idinku xiran tahay aad sameyseen waa runtii wax aad iyo aad loogu farxo loogu faano waaye aad iyo aad ayaan ugu mahadsantihiin waana idinku bogaadinaya intaas kadib fikirka iyo talada ra'yiga daljir channelkan waxay ku salaysan tahay waa qayb ka mid ah dagaalka muxuu ahay nimankan khawaarijta ah ee dalkeena iyo dadkeena maanta u wada taagan yihiin ayay qayb ka tahay doorkii warfaafintu ay lahayd waaye door weyn oo qaadateen waa runtii oo qayb muhiim ah ka ah waxyaabaha hadafyada ugu muhiimsan dadka in uu gaarsiiyo xogta ama wararka dhabta ah ee jira dalka ee arrimaha dagaalka ku saabsan iyo dadka fikirka saxda ah caqiidada xagga diinta tan saxda ah wadaniyada saxda ah xaqiiqada dhulka ka jirta ee saxda ah dadka inay macluumaad sax inay helaan diintu sida ay nimanka noogu fasireen inaanay ahayn oo sida saxda ah loo fasirayo dadka la gaarsiiyo dhulka iyo waxa ka jira iyo xaqiiqada ka jirta sida uu sheegan inay ahayn dulmi iyo joorfalka iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan in ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo fariinteeda iyo mid saddexaad oo dalkan inaan annaga leenahay annaga dalkan buqcadan yarta oo geeska Afrika ku taalo oo Soomaaliya la yiraahdo ayaan adduunyada ku leenahay ummad walba dhulkeeda ay ku faantaa ay ku nooshahay karaamo iyo sharafna intaan ku leenahay marka allaale marka inta ka baxdid ajnabiya tahay meel kasta ee dal kasta oo qurxan meel kasta oo degtay dalkaas qurxoon oo faraha badan oo quruxda badan dadaa dhistay askare annaga kanaan leenahay waa dhisa karnaa waa hagaaji karnaa laakiin waa inaan fahamnaa caqabadaha naga hortaagan 30 sano ee Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto waa 30 sano adduunyada dhan ay horumartay tiknoolajiyada horumartay dhaqaaluhu horumaray oo dalal badan ay aad u dhaqaaqeen annagana dhibaatooyin badan aan ku jirno waxaan aaminsanahay weli dabarkii aan ugu xiran dadka Soomaaliyeed dabarka hadii laga furo 30 sano maahana ka yar inay adduunyada tagto uga daba tagi karaan yaan aaminsanahay nimankan shabaaba adeegyada aaliyaadka ama toolska noo adeegsaday in dabarka ugu xirnaado ay ka mid yihiin ilaahay idinkaas dabarka waa iska gooynay waa dhameystirayna inta dhimanna telefishinkan doorkiisu waa kaas dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan xaqiiqada dhabta ah ee arrimaha xoreynta dalka iyo muxuu ahay wacyiga saxda ah meesha uu ka socdaa waa channelkaas dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay ku xirnaadaan aan rabnaa SNTV2 daljir channelka la yiraahdo oo ay maxaan ku yiraahdaa saas ay ula socdaan shaqaalaha iyo madaxda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta runtii juhdi badan geliyay anagoo og duruufaha lagu shaqeynay inay adag yihiin awoodda dhaqaale ee la haysto inay xadidan tahay awoodda tiknoolajiyada la haysto inay xadidan tahay wax walba inay xadidan yihiin haddana television standard oo quality-giisa wixiisa ay saas u sareeyay inay keeneen waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan khatartay u bareeraan inay frontiga tagaan oo ay maxaan ku raadayay waxa frontiga ka jira ay keenaan ay dadka tusaan lafsadeeda waa dhiiri waxba kale ma duwana wariyaha guud ahaan saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya SNTV iyo askariga frontiga ku jira waxba kale ma duwana laana frontiga wada joogaan meen hadii dadku qarxiis waa ku wada qarxay xabad hadii dadku dhacay waa ku wada dhacay meeshii taagan nimankii muxuu ahay ka socday guud ahaan warfaafinta gaar ahaan muxuu ahay SNTV marka waxaan leeyahay wiilashaas Soomaaliyeed ee halgamayaad ka mid yihiin halgankiina wada ku adkaysta shabaabna waa ka adkaanayna waqti dhow waliba aan dheereen hadii alla yiraahdo guul ayaan idin rajaynayaa hambal ayaan leeyahay SNTV